baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa ujeedkiisu ahaa sidii wax looga weydiin lahaa ra'iisul wasaaraha dalka doorashooyinkan ka dhacaya sanadkan 2016 Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa hortagay baarlamaanka isagoo oo horgeeyay heshiiskii ku saabsanaa doorashooyinka ee ay Muqdisho ku gaareen hogaamiyaasha madasha wada tashiga qaran. Xildhibaanada baarlamaanka ayaa loo qaybiyay warqado ku saabsan heshiiska doorashooyinka waxaana uu faray gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari inay maalinta bariya soo akhriyaan maalinta Isniintana su'aalo laga weydiiyo ra'iisul wasaaraha dalka. waxaan soo jeedinayaa in aan qaadano ilaa berito aan soo akhrino maalinta Isniintana aan u yeerno ra'iisul wasaaraha wixii su'aalo soo baxaan. ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanayaa in maalinta Isniinta aan ugu talagalo labada gelinba waan shaqeyn doonaa hadii ay yiraahdo xogeynta sida oo kale isu diyaariso. ra'iisul wasaaraha ayaa u akhriyay xildhibaanada baarlamaanka go'aanadii doorashooyinka iyo qaabkii ay u dhici lahaayeen waxaana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ka dalbaday baarlamaanka inay ansixiyaan heshiiskan. iyadoo la xasuusiyo go'aankii wada qaateen baarlamaanka ee federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda federaalka 28 bishii July 2015 oo ahaa iyadoo la eegayo xaaladda dalka ku jiro ay suurtagal ahayn doorashooyin hal qof hal cod ah inay qabsoonto 2016 sidoo kale iyadoo xukuumaddu xusuusinta warmutiyeedka ay ka soo saareen madaxda Soomaaliyeed 12 bishii September 2015 ay ku heshiiyeen in daafurnaan hanaan wada tashi qaran oo lagu go'aaminayo hanaanka doorashada ee sanadka 2016 ee ugu habboon uguna macquulsan oo si sharci ahaan ah inuu sahin doonaan u reeguudana hay'adaha federaalka ee arrimaha arrinta khusaysa iyadoo la xusuusan yahay labadii kulan ee madasha wada tashiga qaran ee la kala qabtay October iyo December 2015 iyo geeddi-socodkii wada tashiga qaran ee laga wada qaybgalay ee ka dhacay dalka oo dhan iyo qurbo joogta oo gacan ka geysatay in la kala cadeeyo mawaadiida iyo xuduudaha muhiimka ah ee hanaanka doorashada 2016. xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay u soo gudbinaysaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya hanaanka guud ee geeddi-socodka doorasho sida lagu qeexay go'aankii dowladda federaalka ee 28 July 2016. xukuumadda federaalka iyadoo eegaysa duruufaha dalka ku jiro waqtiga oo gawaasa iyo hawsha baaxadda leh ee dhiban waxay ka codsanaysaa golaha shacabka inay ansixiyaan hanaankaas doorasho oo lagu keenay wadaxaajood siyaasadeed kula keenay oo lagu keenay wadaxaajoodkaas ay sheegay looguna talagalay runtii inuu qabsoomo waqtiga loogu talagalay ee ah August 2016. xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa la filayaa in qodobada qaar ee doorashooyin ay wax ka bedel ku sameeyaan maadaama qodobadaas uu awood siinayo hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka. Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere TV-ga caalamiga Star magaalada Muqdisho.